gudoomiyaha debadmeerka ah ee Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxa uu ku wajahan yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo oo xildhibaanadii ugu badnaa ay mooshin ka diyaarinayaan xilka qaadista magaalada Hargeysa ayaa uu ku soo dhiiran waayay imaatinkeeda mas'uulkan awoodda saddexaad ku lahaa Somaliland hase ahaatee waqtigan ay u muuqato inuu lumiyay ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu ku sugnaa magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaali Galbeed warbixinteennana waxaynu ku soo koobaynaa dhaqdhaqaaqa ka dhanka ah ee magaalada Hargeysa ka socda iyo safarkiisa Sool Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu ku sugnaa magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaasina wuxuu kulamo kala duwan kula qaatay madax dhaqameedka fog ee debadmeerka isaga laftiisu ah ee mucaaradka ku noqday xukuumadda madaxweyne Biixi oo uu ugu horeeyo boqor Buurmadow iyo sida oo kale madax dhaqameed kale oo iyaguna ka soo jeeda gobolada Somaliland magaalada Addis Ababa oo uu qoobka geliyay mas'uulkani ayaa waxa uu kula kulmay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan kulankooda kadibna waxa ay qaateen kulamo kale oo ay u arkayeen inay dani ugu jirto mucaaradnimadooda waqtigan xaadirka ah gudaha Somaliland intaasi kadib mas'uulkani waxa uu go'aansaday inuu magaalada Hargeysa tago hase yeeshee caqabado halkaasi kaga horyimi ayaa jira kuwaasi oo ay kow ka yihiin xildhibaanada badigooda oo mooshin xilka qaadisa waqtigan diyaarinaya iyo la xisaabtan cid kasta oo qalluucisay xaaladda muddooyinkii ugu dambeysay ka taagnayd magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay xal u raadinayaan waxaana xildhibaanada badigoodu ay taageersan yihiin in mas'uulka saddexaad ee leexday lala xisaabtamo kaasi oo warar been abuur ka sameeyay xukuumadda Somaliland iyo ciidanka qaranka ee ku sugan gobolka Sool xildhibaano tiradoodu yar tahay oo Cabdirasaaq Khaliif Axmed taageersan ayaa jira kuwaasi oo aan waqtigan xaadirka ah awood ku lahayn golaha wakiilada ee Somaliland xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Biixi ayaa iyaduna waxa ay ila wareedyadu noo xaqiijiyeen inay dacwad ka dhan ah xeer ilaalinta u gudbisay Cabdirasaaq Khaliif Axmed taasi oo ka dhigan in lagula xisaabtamayo sharci jabinta iyo dastuurka jamhuuriyadda Somaliland oo ka horyimi madaxweyne ku-xigeenka oo dhawaan wareysi bixinayna waxa uu sheegay in lagula xisaabtami doono Cabdirasaaq Khaliif Axmed wararkii been abuurka ahaa ee uu warbaahinta mariyay iyo sida oo kale waraaqo uu diray beesha caalamka iyo midowga Afrika kuwaasi oo si cad uga been abuurayay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ugu dambeyntii go'aan ku gaaray inuu ku noqdo bariga Sool oo uu si weyn u taageeray taasi oo u lumiyay mas'uuliyaddii iyo miisaankii weynaa ee uu ku lahaa gudaha Somaliland halkaasi oo sidii uu kaga tegay ay xaaladdu ka sii darsatay sida oo kale garaadaduna ay waqtigan xaadirka ah awoodda ciidan ee ay haystaan ogaadeen iyo ciidanka qalabka sida ee Somaliland inaanay ka qabsan karin fariisimada ay ku leeyihiin gobolka Sool ee ka sugayaan ammaanka iyo xasiloonida Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ila wareedyadu waxa ay noo xaqiijinayaan inuu waanwaan iyo isu jiid ku dayayo Somaliland iyo garaadada wada hadal inuu isugu keeno hase yeeshee waxa dhaawacday odaytinimadiisa iyo sida oo kale nabadgelyada uu waday wadadii uu isagu maray oo aan ahayn mid habboon waxaana la filayaa maalmaha soo socda inuu iska xaadirin doono magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed